ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden oo lagu magacaabo Soomaaliska Riksförbundet i Sverige ayaa magaalada Stockholm ku qabtay kulan lagaga hadlayay sidii dadka aqoon-yahanka ee qurbaha ku nool ay wax ugu qaban lahaayeen dalkoodii iyadoo kulankan ay ka soo qayb galeen madaxa isuduwaha qaramada midoobay ee xafiiska Soomaaliya Master Mark Yakwen iyo madaxa howlaha bangiga adduunka ee Soomaaliya Miss Butiri Watson iyo waliba aqoon-yahano badan oo Soomaaliyeed You know, we always say the United Nations is your organization, and that's true. But I think more importantly, just because of your experiences as diaspora and your perspective on things, having lived in Somalia, having left Somalia. So there's a lot of good news coming out of this very recent re-engagement of the World Bank in Somalia. And one of the reasons I'm here today is to also communicate that to you sitting here in Stockholm and making sure that in Sweden how the World Bank can help facilitate because there's a lot of challenges that the remittance industry are facing nowadays, especially in Somalia. The banks are closing, so we will try to put also the narrative of the human side of the remittance, how the people sending the money are feeling about. My discussion today, or maybe my contribution would be more on education and how the youth can contribute at least to the rebuilding of Somalia. And also how the infrastructure investment, especially from the World Bank. And I'm interested in hearing today how we can discuss the resource management and diaspora's contribution to agriculture, fishery and... kulankan ayaanu wax ka weydiinay ujeedada loo qabtay gudoomiyaha ururka isbahaysiga Soomaaliyeed ama dalada Soomaaliyeed ee dalka Sweden mudane Habane Xasan. ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden halkan wuxuu ku qaban qaabiyay shir aan iskugu keenay ummadda Soomaaliyeed wax barato Sweden degan diasporaha iyo hay'adaha caalamiga sida bangiga World Bank iyo UN oo aan ugu talagalnay inay iswareystaan diasporaha dadka cilmiga leh oo wax bartay dalka Sweden siday cilmigooda ugu celin lahayn dalkii oo hooyo UN-tana wuxuu gudbinay information ku saabsan horumarka Soomaaliya gaadhay diasporaha nooc badan bay u gudbin karaan sida uga qayb qaataan horumarka dalka Soomaaliya laakiin maanta waxay ku saabsaneed inay isbartaan diasporaha dadka cilmiga leh oo diyaarka u ah inay dalkii wax ku u geystaan inay cilmigooda iyo xooggoodaba UN-tana waxay rabtay dadkii inay barato sidii loo arko hawsha ay ka wadaan dalkii marka dialogue baa halkan ka dhacay annaga waxaan rajaynaynaa inaan ummadda wax baratay oo Soomaaliyeed oo Sweden degan inaan informationka ayna siinayaan ay noqoto diyaar baan u ah dalkiina wax u geysto inaan wax ka qabto oo laga hadlayo si anaga ugu qayb qaadan karno wadankeena horumarkiisa iyo anaga naftigeena inaan codkeena diibano oo u sheegno international community-ga anaga naftigeena ka qayb qaadano waxa wadankeena dan ugu jirto barxad aad baad u mahadsan tahay runtii maanta anaga shirkan waana lagu soo casuumay oo waxa la yiri private sector-ka shirkadda Sahamiya OB ha u madasho kana soo qayb gala sida ogeed baan uga soo qayb galay wuxuu ahaa shir runtii muhiim ah oo information fara badan labada dhinac bay soo wadaarsadeen waxaan ajandihiisu ahaa dadka dibadda jooga especially dalkan inuu deganahay Sweden sidee baynu dalkeeni wax uga tar karnaa wax uga qaban karnaa arintaasna runtii maanta guul fiican baa laga gaaray dad badan wax ka qabtay baa history-googii soo bandhigay Barkad Abdullahi Mohammed Home Cable TV magaalada Stockholm wadanka Sweden